Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Ugu horeyn waa salaamantihiin. Waxaan doonayaa haddii Alla yiraahdo inaan bilaabo sheeko la magac baxday Dariiqa Guusha, The Way of Excellence. Insha Allahu tacaala sheekadan waxaan ku soo qaadan doonaa fahamka iyo sida ugu guuleysan kartid. Muuqaalka si aan u bilowno, haddii aad nagu cusubtaana nagu soo biir si aad uga mid noqotid bahawooyinta aan meeshan ku midownay. Lawana wadaag Sida aad saaxiibada. ugu guuleysan kartid iyo wadada saxda ah oo ku guuleysan kartid. Waxay ka hadlaysaa sheekadan wiil yar oo markii hore ka lunsanaa dariiqa saxda ah ee habaabay. Hase ahaatee is ogaaday inuu lunsan yahay, sidaa awgeedna bilaabay inuu raadiyo cid waaya aragnimo iyo aqoon leh ku hagta tubta toosan. Ugu dambeyntii waxaa loo tilmaamayaa nin xakiim ah oo dadka bara dariiqa toosan ee guusha lagu gaaro. Inkastoo uu tagitaankiisii dhibaato badan uu kala kulmay, haddana ugu dambeyn wuu ku guuleystay. Laga bilaabo maalinta uu u tagay, waxa uu bilaabatay duruus isdaba joog ah, dhammaan ku saabsan dariiqada guusha lagu gaaro. Xakiimkii wiilka yar wuxuu marka hore barayaa samirka, marka labaadna inuu xirfad aqooneed yeesho. Wiilka yari markii uu aqoon ku filan yeeshay ayuu bilaabay inuu aas-aaso shirkad isaga iska leeyahay. Laakiin muddo yar kadib waxaa ku dhacay fashil aad u xun. Mar labaad ayuu ku soo noqonayaa ninkii xigmadda badnaa, isaga oo la yaaban sababta uu u fashilmay maadaama uu asbaabtii oo dhan la yimid. Ninka macalinka ah ee xigmadda badnaa ayaa markiiba ogaanaya sababta keentay inuu fashilmo. Xakiimkii ayaa ku jawaabaya, waxaad la timid sababtii maadiga, waxaadna ilowday tii Ilaahay. Halkaa ayuu duruus isdaba joog ah uga bilaabayaa. Duruustaasina dhammaanteed waxay ku saabsan tahay ku xidhnaanshaha Ilaahay, sida tawxiidka, ikhlaaska, salaada, daacada, saamaxaadda. Kadibna wuxuu barayaa akhlaaqda wanaagsan oo ah sidii uu dadka ula dhaqmi lahaa. Halka laba arrimood oo muhiim ah ayuu barayaa. Waa ta koowaade in ruuxu marka hore Ilaahay xidhiidh wanaagsan la yeesho, isagana tala saarto, isaga keligii caabudo, wixii uu amray la yimaado, wixii uu u diidayna ka tago. Ka labaadna waa inuu ruuxu xidhiidh fiican bulshada la yeeshaa oo habdhaqan wanaagsan kula dhaqmo. Marka ruuxa labadan arrimood laga helo ee uu ku darsado xirfad iyo aqoon, ayuu guul gaari karaa. Laakiin haddii ruuxu kaliya awood saaro aqoonta iyo xirfadda oo ka madhan diin iyo akhlaaq, ruuxaas guulu way ka dheertahay. Sheekadan waxay noqon doontaa sheeko inoo tixana insha Allahu tacaala. Waxaan isku dayi doonaa inaan waqtiga ilaalino oo ka dhigno waqti kooban iyo sheekada oo aad iyo aad loo fahmo insha Allahu tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.